gudoomiyaha golaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ahna haatan si haya xilka madaxweynaha dalka iyo ku-xigeenka ra'iisul wasaaraha ayaa si wadajir ah maanta ula kulmay wafdi ballaaran oo ka socda wadanka Mareykanka oo ay ka wada hadleen xaaladda guud ee dalkan Soomaaliya sida uu ku waramay wariyahayaga Maxamed Macalin Xasan Waydka mudane maxamed sheekh cismaan jawaari kusmaha madaxweynaha dalkan gudoomiyaha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa kulanka ula qaatay safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Danjire Andrew waxa ay ka wada hadleen xiriirka ka dhaxeeya labada dal iyo xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka dhameystirka howlaha baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya horyaala iyo sidii Mareykanka uu xoojin lahaa taageerada uu siinayo dawladda Soomaaliya kusmaha madaxweynaha dalka mudane maxamed sheekh cismaan jawaari ayaa dawladda Mareykanka uga mahadceliyay taageerada ay dawladda Soomaaliya siiso isagoo ku booriyay inay dardargeliyaan taageeradaasi dhanka kale ra'iisul ku-xigeenka dalka mudane maxamed cumar carte oo ay weheliyaan wasiirada difaaca maaliyadda taliyaha ciidanka xoogga dalka abaanduulaha ciidanka iyo saraakiil kale waxa ay kula qaateen safiirka Mareykanka ee Soomaaliya oo ay ka wada hadleen horumarka ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya sidii ay joogto u heli lahaayeen ciidanka xuquuqdooda iyo weliba dib u dhiska ciidanka mudane maxamed cumar carte ra'iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa ka codsaday dawladda Mareykanka inay gacan ka geysato isdhexgalka ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya ismarkaana ay sare u qaado taageerada ay siinayaan dawladda Soomaaliya haddii ay ahaan lahayd horumarinta amniga iyo dib u dhiska kaabayaasha dhaqaale ee dalka kulamadan ay madaxda dawladda la qaadanayso diblomaasiyiinta caalamka ayaa kuwa lagu xoojinayo dadaalada dawladda ay ugu jirto in guud ahaan dalka nabad lagu soo dabaalo maxamed macalin xasan waydka telefishinka qaranka muqdisho.